madaxweynaha galmudug ayaa xalay kulan la qaatay odayaasha dhaqanka magaalada dhuusamareeb kulankan madaxweynuhu waxa uu odayaasha ku weydiiyey su'aal ahayd maxay yihiin sababta xilligan keentay in ciidamo laga qoro deegaanka uusan maamulku raalli ka ahayn ama aan hoostegin maamulka duqeydii dhaqanka ee kulanka ka qayb galay ayaa arrintan iska indhatiray iyagoo sheegay inaysan waxba ka ogeyn inkastoo xogaha qaar aynu helnay ay sheegayaan in qaar ka mid a duqeydii dhaqanka ee kulanka goobjoogga ka ahayd ay wax ka ogaayeen qorista ciidamada waxay ka socotaa magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb inkastoo hadda macluumaadka aynu helayno ay sheegayaan in qaar ka mid ah deegaanada kale ee Galmudugna ciidankan laga qorayo xogaha ayaa sheegaya ciidankan si gaar ah loogu qorayo agaasimihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad inkastoo saraakiisha ciidankan qoristooda ku mashquulsan ay arrintan beeniyeen sheegeen in ciidankan uu yahay ciidan lagula dagaalamayo maleeshiyada Al-Shabaab xogo hoose oo aynu helnay ayaa sheegaya in dhaqaalaha ku baxaya ciidankan iyo mushaaraadkoodaba ay Mahad Salaad ka caawinayaan qaar ka mid ah ganacsatada beeshiisa isla markaasna uu yahay ciidankan ciidan gaar ah oo Mahad Salaad loogu talagalay xisbiga uu ka tirsan yahay Mahad Salaad ee dawladda ayaa iyaguna dhinacooda soo jeediyay in hadda wixii ka dambeeya Mahad uu safro Galmudug halkaasna laga bilaabo ololaha doorashada hayeeshee dhinaca madaxweyne Qoorqoor ayaa fajaciya ama kaag u arkay in xilligan olola doorasho dadban uu deegaanka ka bilowdo isaga oo u ololeynayay in doorasho qof iyo cod deegaanka laga bilaabo xogaha arrimaha doorashooyinka in helayna ayaa sheegaya in isla qorshaystay in Galmudug laga qabto doorasho dadban isla markaasna dhinaca dawladda ay doorashadan u dirsatay Mahad Salaad inkastoo arrintan lagu kala qaybsan yahay oo ay jiraan tiro kale oo musharaxiina oo u tartamaysa xilka madaxweynaha Galmudug